halka waxaan bilaabaynaa fasalkii sagaalaad oo ku saabsan xiriiriye. xiriiriye wuxuu noqday xubinta sideedaad ee xubnaha hadalka af Soomaaliga. casharku waa 12aad. waa maxay xiriiriye? xiriiriye waa erey isku xiriiriya hadal ka kooban ereyo ama hawraado. ereyada la isku xiriirinayo waxay noqon karaan magacyo ama magacyaallo, sifooyin iyo falal. waxaa xiriiriyaashu xiriirin karaan waxyaalo hawraad gudaheed ku jira ama laba hawraadood, labadaba way xiriirin karaan. hawraad gudaheed aan ku horeyno markaas. ereyada hawraad gudaheed waa xiriiriya waa ereyadan ama, iyo, la, ba, se, laakiin, mise, oo iyo gedigood iyagoo hawraada ku jira ayaynu tusaalayaasha ku arki doonaa. ereyadan aynu soo tirnay baa haddaba u kala baxaa kuwo isku xidhiirinaya laba magac ama laba fal, iyo kuwo isku xidhiiriya laba sifo ama laba fal. xidhiiriyaasha isku xidha laba magac ama laba fal baleeg hawraaraha hoose ee labada tusaalayaal. cali ama faarax waa taga dugsi. cali iyo faarax ama ayaa xidhiirinaysa. tag ama joog waa laba fal, maxaa xidhiirinaya ama. roble waa nin caqli badan, axmedna maaha. baleeg axmed iyo maxaa xidhiirinaya roble na laa xidhiirinaysa, waa laba magac. ma hurdo wiilku mana soo jeedo, laba falba hadda naadi xidhiirinaysaa. ma hurdo mana soo jeedo. ciye iyo wiilaba waa raacaan xoolaha. ciye iyo gabadho wiila la yidhaha maxaa xidhiirinaya, baadaa xidhiirinaysa. haye u hooyadaa oo balaantagaba, hooyo balaantagaba, labadii falimka waxa xidhiirinaya baadi baa xidhiirinaysa. axmed ma joogo, calise waa joogaa. hadda laba magac baa sead u xidhiirinaysaa, axmed iyo cali. wuu tegey waa se uu soo noqday markiiba. haddana waxay sead xidhiirinaysaa labada fal ee tegey iyo noqday. ma axmed baad rabtaa mise cali, laba magac baa hadda la xidhiirinaya oo misadu xidhiirisay, axmed iyo cali. faadmo ma joogtaa mise waa maqan tahay, mise haddana waxay xidhiirinaysaa labada fal ee joogtaa iyo maqan tahay. aamina iyo sahra waa walaalo, laba magac baa hadda aynu xidhiirinay oo iyadu xidhiirisay. ma aan ogi inuu tegey iyo inuu joogo, haddana waxay xidhiirisay iyadii labada fal ee tegey iyo joogo. xiriiriyaashii xidhiirinayay hawraad gudaheed waxaan soo aragnay ama, iyo, na, ba, se, mise. xiriiriyaashu waxay xidhiirinayaan laba magac ama laba fal. markaa waxa weeye dib baan ugu yar noqonay labada hawraadood. kuwa hore 1, 3, 5, 7, 9, 11 magacyo ayay xidhiirinayaan. kuwa dambena 2, 4, 6, 8, 10, 12 falal. saasi markaa qorano u xidhiirinaysaa laba magac, qaarna u xidhiirinayaan laba fal. xidhiiriyaasha isku xidhiirinaya laba sifo ama laba fal waa kuwan iyaguna. xidhiiriyaasha hawraaraha hoose waa ereyada oo iyo waa laba xidhiiriye oo iyo kuwaasoo isku xidhiiriya laba sifo sida hawraaraha koowaad iyo saddexaad, ama laba fal sida hawraaraha labaad iyo afraad. haddaan eegno tusaalayaashan xidhiirinaya laba sifo ama laba fal. orgii cad oo shilis baa la qalay. waxa weeye cad waa sifo, shilisna waa sifo. maxaa xidhiirinaya oo baa xidhiirisay oo xidhiiriya. isaga oo hurda oo quurinaya ayaanu galay. haddana waxa weeye oodii waxay xidhiirinaysaa laba fal. labada fal maxay noqonayaan quurinaya, hurda oo quurinaya, isaga oo hurda oo quurinaya. marka laba fal buu oodii xidhiirinaysaa. wiilka buuran ee madow baa u gaabiya inamada. eedi maxay xidhiirisay laba sifo, buuran iyo madow waa laba sifo. haddana iyadoo laba fal xidhiirinaysa waa tan. cali ma joogin ee waa maqnaa. ma joogin waa fal ee waa maqnaa ogaalkeed. hadda waxaan gudbinaa qaybtii labaad oo ah xiriiriyaasha isku xidha laba hawraadood. markii hore hawraad gudaheed baynu ka hadlaynay, laakiin hadda waxa weeye kuwani waxay isku xidhayaan laba hawraadood.
xiriyaasha isku xidha laba hawrarood waa kuwan soo socda tusaalayaal maanta tago Kismaayo waayo waa xidhiidhiye isku xidha laba hawrarood cid kama aqaan ka labaad waxa weeye may jecla Muuse maxaa yeelay waxa weeye xidhiidhiye isku xidha laba hawrarood maxaa yeelay waa nin xun mararka qaarkood weed ama wax ka gaaban oo ayaa ay isku xidhi karaan iyo hawraar sida masalan qafal xumo darteed buu afka la buuraa darteed waxay noqonaysaa wax laba isku xidhaya laba hawraarood oo kale hawraar dhan maaha xaggan laakiin haddana waa saasaa loola macaamilaya gobonimo awgeed baa dad badan u dhinteen awgeed waxay noqonaysaa xidhiidhiye isku xidhiidhiya laba hawraarood hawraaraha ay isku xidhayaan waayo iyo maxaa yeelay waa kuwan hawraarihii tusnaa masalan waxa weeye ta u horeysa ma aan tago Kismaayo cid kama aqaano adeeg laba hawraarood bay kala hayeen markaan isku darin maxay noqdeen ma aan tago Kismaayo waayo cid kama aqaano ma ay jecla Muuse waa nin xun waa laba hawraarood kala jecel maxay markii la isku daray noqdeen ma ay jecla Muuse maxaa yeelay waa nin xun qafal xumo markaa ayuu afka la buuraa dad markaa wey saasaa laba ay isugu xidhayaan oo labadii hawraaroodna aynu u muujinay